سطرت بالشعر المزمجر أسطرا تروي الغليل مجلجلا متأثرا سطرت شعرا خلت أن حروفه شوبا لتحرق باغيا متكبرا maxaa ka ogtihiin noocyada kala duwanaa ee guurkii jaahiliyadii hore jiri jiray qaarkoodna laga yaabo islaamka kadib inay ilaa haddaba jiraan noocyada kala duwan ee guurka jaahiliyadii hore qaarna hadda ay dadkuba sameeyaan ayaynu halkaani ku wada wadaagaynaa walaalaha sharafta lahow guurka jaahiliyadii yacni islaamka ka hor wuxuu ahaan jiray wax tusaale ah oo kale kaasoo u eg fawdo iyo waxaan nidaam iyo sharci ku socon kaasoo akhlaaqda baabiiyey sida ayba u ahaydba eegmada haweenayda lagu eego mid xaqiraada ama gumaysi u eg laan jaahiliyadu haweenka waxay u arki jireen waxaan jirin oo muuqaalkeeda iyo muuqaal la'aanteedu ay siman yihiin sidaa darteed guurka iyo damaca markii lala doono waa mid ka sii liita dhaqanka noocaasa haweenayda jaahiliyadii waxaa loola dhaqmi jiray sidii alaab oo kale guurka iyo jinsiga markii laga doonayana keliya waxa weeye marka ninku uu danaysan yahay oo bas haweenayda markii la danaynayo waa marka shahwada iyo jinsiga laga rabo oo keliya markaas ayaa xiriir lala sameeyaa marka kale waa wax najaasa ama sida waxa loola dhaqmaa alaab oo loo kala gataa guurkii jaahiliyada jiri jiray ama sidii haweenka loola dhaqmi jirayba guud ahaan wuxuu ka fogaa wax walba oo aas ibni aadan ama insaannimo ay tusto ogow guurkaasi waayahaasi hore jiri jiray islaamka ka hor haddana dad muslimiina dhexdooda kama suulin mid u eg ama asagii laftirkiisa inuu sii jiraba bal si aad u ogaatid noocyadaas kala duwan nala soco bilowga ilaa dhammaadka noocyadii jiri jiray ee guurka ku saabsanaa jaahiliyadii waxaa ka mid ah guurkii loo yaqaanay isku-beddelkana waxaa laga wadaa isticmaalka xubinka taranka ee haweenayda waxaa la siinayaa ninka qaba nin aan ahayn asagoo markaasi og oo ku raacsan asagu ma taabanayo ninkeedu ilaa uu ogaado uur inay leedahay oo ninkii u soo hayay uu uurka u soo yeelay markaas asugu taabanaya oo haysanaya yacni waa guur tijaabo ah ninka xaaska markuu guursado nin kale loo geynaya oo soo tijaabinaya markii la ogaada inay uur leedahay baa ninkeedu hawshiisu u bilaabmaysa kii caadiga u qabay ujeeddada ay ka leeyihiinna waxa weeye ninkaasi lagu tijaabinaya haweenayda ayaa waxaa la fiirinayaa geesinimadiisa halyeynimadiisa xikmaddiisa iyo hoggaannimadiisa oo nin khatar oo caana weeye ninkaas marka waxay leeyihiin haweenayda waxay la seexatay nin sidaas oo caana oo halyeeya marka ninkani waxaa u dhalanaya ilmo ninkaasi shabbahaya oo geesi raganimada ayay baarayaan sifaadkeeda mararka qaarkood dhaqamada qaar way ka sii badiyaanoo naagta laba nin baa loo samaynaya oo ahayn kii qabay marka ninkeeda hadduu uusan maal haysan oo ka caajisay waxbixintii waxay aadaysaa ninkaa kale labadaasi marka u rahran yihiin waxaa kaloo waayahaasi jiray inay haweenaydu samaysato calan guduudan oo gurigeeda hortiisa ay ka muddo isagoo calankaasi tusaale u ah inay haweenaydan tahay mid jidhkeeda ka ganacsata oo xoola rabta si ay ragga u soo jiidato marka calanka guduudan baa lagu arki jiray sideeda waxaad ogaataanba midab guduudan oo kastaba fuxshi iyo xumaan buu ka soo jeedaa sidaa darteed baa xataan islaamka dhexdiisa la ogolayn qofku inuu xirto wada guduudku wuxuu tusaa sidiisaba imaa fuxshi zina wax ka soo jeeda calaaqooyin xiriir xaaraama ama dil ama waxyaalo kale midabka guduudanba sidiisa xumaan buu ka soo jeeda waxaa kaloo ka mid ah baashan guduudan ee rooseetada ee dumarku qaarkood ay bushimaha marsadaan waayii hore waxaa lagu aqoon jira caanku ahaan jira haweenka jirkooda ka ganacsada bal haweenkaasi mid ka mid ah hal abuurtay bushimaha waxa guduudan ay haweenka qaarkood marsadaan caan bayna ku ahayn haweenka jirkooda ka ganacsada waayahaas marka ilaahay hadda mujtamaca kama suulin inuu ku sii dhex baaqi yahay jaahiliyadii hore dhaqamo xunxun oo jiri jiray laakiin inta badan kama warqabaan guurarkii hore ee jaahiliyada jiri jiray waxaa ka mid ah guurka jamaacada yacni 10 qof wax ka yara wey haweenayda 10 tiro aan gaarayn oo rag ah ayaa haweenayda iska leh kanay u tegaysaa haddii ay uur qaado oo ilmo dhasho ilmahaasi magaciisa waxay bixinaysaa nimankaasi midkay ka dooratay ragga kale marka inay arrintaasi ka hor imaadaan suurtagal oo ma aha guurkaasna qaybo kala duwan buu lahaa waxaa ka mid ahaa in rag dhowra oo walaalaa ay wadaagaan hal haweenaya ogow hadda guurka noocaanana qaybo ka tirsan hindiya hadda waa kasii jiraa kii hore aynu tilmaanana qaybo ka mid xataa afrika waa ka jira in ninka haweenaydiis uu nin kala siiyo uu yidhaahdo iisoo uure ama ninkaasi waxaa lagu xilanayaa xoolaa laga qaatay ama uu qurux badan yahay si ilmo quruxsan ay u dhasho waxyaalaha noocaasa ayay ka xiganayaan guurarkii hore jaahiliyada waxaa ka mid ah saaxiibnimada guur buu xisaabsanaa waayahaas hore haweenaydu waxay samaysanaysaa hal nin wax ka badan oo saaxiib ah guurkii hore jaahiliyada jiri jira waxaa ka mid ah guurka dhaxalka yacni haweenaydii waa la dhaxlayaa sidii xoolihii oo kale qaraabadii baa dhaxlaysa mararka qaarkood kaasi wuxuu shabbahaa waxyaalaha
loo yaqaan dumaasha hadduu markaasi khasab ku dhisan yahay ila Soomaaliya qaarkood waxay isticmaalaan dumaal ninkii markuu xaas ka dhinto ninkii dhintay walaalkiis ama qaraabadiisa raggaasi mid dooro walaalihiis ama ilma adeeradiis ninkeedii dhintay ma diidi karta marka ay ku khasban tahay hadday diido saam bay ahaanaysaa nin kale oo ka soo agdhaawaan kara malaha marka waa guur dhaxaleed baa la yiraahdaa jaahiliyadii hore guurarkii jiri jiray uu kamid ahaa inta islaamka uu sameeyay quraankuna wuxuu leeyahay haweenka dhaxlinina ninka markuu dhinto haweeneydii ninkii dhintay qaraabadiisa ayay mid dooranaysaa xaqo malahan inay ka dhaxbaxdo waxa kamid ah guurarkii hore jiri jiray in wiilka uu guursado xaaska aabihiis uu qabi jiray ama uu ka dhintay hadduu aabuhu dhinto oo haweeney uu qabay wiilkii aabaha dhintay uu dhalay ayaa guursanaya hooyadii maahan yacni aayadiis aabihii qabay way waxaana guursanaya wiilka ugu weyn carruurta markuu aabihiis dhintaba go'iisu saaraya aabihii naagta uu ka dhintay eedadiisa oo annagu ayaa inuu noqona ama eedo sidaasoo ku dhaxlayba uu ku guursaday hadduu saasagu markaasi rabin mid kale walaalkiisa ayuu siinayaa meher cusub uu ku siinayaa markaas hadday walaaluhu diidaan oo aysan rabinna qofkii doonaa la siinayaa meher bayna ka qaadanayaan ayaga meher ka cunaya iyadana ninkaas la siinaya sidii wax beec oo kale hadday rabaanna maba u guurinayaanba guriga ku xabisayaan ilaa ay iska dhimanayso kadibna ay iska dhaxlaan xoolaheeda ama nafteeda ay furato xoolo ayadu ay bixiso guurarkii hore jaahiliyada jiri jiray waxa kamid ah guurka loo yaqaan shiqaar macnihiisuna waxa weeye ninka gabadhiisa wuxuu u guurinayaa nin shardiguna waxa weeye adna gabadhaada ii guuri labada gabdhood baa la isdhaafsanaya ninkaani gabar buu dhalay gabadhiisu xuseynaya nin kale ninka kalena gabadhiisu xuseynaya ninkan gabadha siiyay labadii gabdhood baa la kala bedelanaya markaasna meher ma jiro ayaga isu mehera isku bedelka la isku kala bedeshay ana waxyaalo islaamku uu reebay dhaqamadii uu baabiyay ayuu kamid ahaa laakiin bulshooyinka qayb kamid ah hadda uu ka jiri kara arimahaas mid la mid ah dadkeena qaarkood waxay xataa sameeyaan aabahani gabadhiisu bixinaya gabadhiisu markuu bixiyo ninkuu siiyay gabadhiisu asan siinaya laakiin meesha yar waxay ku khilaafan qaarkood meher bay sameeyaan laakiin waayaha hore meher ma jirin ayaga meher isu ahaa waxa kamid ah guurarkii jiri jiray jaahiliyadii hore islaamka ka hor ee foosha xumaa guurka isku bedelka loo yaqaan ka hadaynu tilmaanay ayuu u eegyaa laakiin qayb uga dunya waxa weeye ninkaani xaaskiisa wuxuu siinaya nin kale kaasna xaaskiisa wuxuu soo siinaya kan xaaskiisa siiyay labadii haween ayaa la isku bedelanaya oo ninba wuxuu leeyahay nin xaaskaygan ku siinayaa adna xaaskaada isii wala isku bedelanaya islaamku markuu yimid wuxuu ahaa naxariis iyo hanuun ilaahay u soo diray bilaadanka dhammaan gaar ahaan dumarka ilaahina haweeneyda waa kareemeeyay xaq dhamaystiranna waa siiyay waxa uu guuraro jiri jirayna sharcigu waxba kama soo qaadin oo daaqada ayuu ka tuuray guurka islaamka uu fasaxay waa midka joogtada ah waa inuu ninka gabadha ka doontaa aabaheed ama qofka u dhigma shuruud buuna guurkaasi leeyahay si uu u ansaxo shuruudiisa baldhagayso kow haweeneyda markaad guursanaysid waa inaysan ahayn haweeneydaas aad guursanaysid mid xaaraamka ah sababku doonaba arrinkaasi ha keene sababkaas oo ka mid noqon kara sababaha wax xaaraam yeela xaaraamta abadka ama midda waqtiyaysan shardiga kale waxa weeye guurkaasi xiritaankiisa laba makhraati waa inay joogaan makhraatigaasoo makhraatinimadiisa la aqbalo waa guurka markuu sax yahay kii jaahiliyadan uu khilaafsan yahay nabigeennana waxaa laga wariyay inuu yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadli nikaax ma jiraya ansaxaya haddii la waayo weli iyo laba makhraati oo caadiliina shardiga kale ee guurku ku ansaxana waxa weeye in nin iyo haweeney isguursanaya ay jiraan waa in haweeneydii iyo ninkii la cayimaa oo la yiraahdaa hebel iyo heblaaya isguursanaya laakiin lama ogola wax aan la cayimin in la isu guuriyo la yiraahdo reer hebel ama qoyskaas wiil ka mid ah gabadha lagu daraya wiilkii lama sheegin reerkana wiilal badan baa u jooga guurkaasi ma ansaxayo sidoo kalena la yiraahdo reer hebel gabdhaha u jooga mid ka mid ah ayaa wiilka lagu meherinaya marka odagii qoyska ayaa imaanaya wuxuu leeyahay gabdhahayga mid ka mid ah kugu meheriyay hadhow marka soo dhexmarti ka anfaacda ka qaado lama ogola ninka iyo haweeneyda isguursanaya waa inay magacaaban yihiin oo la cayimay magacyadoodii la sheegay la garanayo wax mugdi iyo hoosaasin ay ku jirto lama ogola sharciga islaamka shardiga kale ee guurku ku ansaxmo waxaa ka mid ah in ninka ama haweeneyda aan la isku khasbin oo haweeney nin aysan doonayn aan lagu khasbin ama ninka haweeney uusan doonayn lagu khasbin raalli ahaansho iyo aqbalaad labada dhinac wayna ka timaada ee isguursanaya waxyaalaha ay culimmada qaarkood sii raaciyaanna waxaa ka mid ah in guurka la sheego dadka ay ogaadaan oo wax la qariyo uusan ahayn ilaa ogaanshahaas la ogaaday waxaa ku xaasilayo lagu helayaa masaalix kala duwan oo dhinaca diinta iyo adduunyadaba u noqonaya ujeedka loo cilaaminayana waxa weeye sharafta uu guurku ku leeyahay islaamka dhexdiisa meeshana waxaa laga saarayaa mala kastoo xun iyo shubha dadka dhexdooda socota ilaa dadku mala xun bay malaynayaan islaan iyo nin aan la ogeyn goorta
intay isguursadaan ayagoo isla socdo isla degan haddii la arko marka waa inay yihiin wax la ogaa oo caan noqday ilaan horaa loo yeeray xalaal barqaa la qashaay halkaa waxaad ka garanaysaan islaamkaasi wuxuu reebay ee jaahiliyada jiri jiray haddana meelo qaarka adduunka ka jira wadamo muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahayn in ay haweenka ku yihiin meel ka dhac waxyaalaha la sii bedelay laakiin jaahiliyada jiri jira oo hadda laakiin magac kale loo sameeyay waxa ka mid ah reer galbeedkana inta badan ku badan dadkeenana qaarkood ay ku saameeyeen in ninka la yiraahdo hal xaas wax ka badan ma guursan kartid laakiin 100 saaxiib oo gabdhaha waa sameeysan kartaa waa qaabkii badeecad ahaa ee jaahiliyada hore jiri jiray intaasi waxaan islaam ahayn oo xaqa dumarka oo dhammaystiran haya ma jiro waxa magacyada loo sameeyay waa un jaahiliy wax jiri jiray laakiin magaca laga bedelay marka dumarku ma ahan badeeco la kala iibsanayo la isku bedelanayo jinsiga lala aadayo ma ahan xiriir kasto hoose oo nin iyo haweeney dhex mara oo sharci aan ahayn shar iyo xumaan iyo fadeexo waxaan ay ma keeno aad baad u mahadsantiin wax badan inaad ka faa'iideen darsigaana waa filaynaa jazaakumullahu khayran سطرت بالشعر المزمجر أسطرا